ونيو علامات قبري أنا لقى الميس ديجامدنا قبري أنا لقى الميس سنسيدها إنه هنا قبري أنا لقى الميس القابت إنه مقعد إنه قبري أنا لقى الميس إلى هنا إنه ويدين ما ينورن مايو مصومال باتاي ملاك مركا إنه ويدين السؤال مصومال باتاي يو ما هم حاطة هنا دون ويدين ميسو ما صومال لا باتاي مس صوماليا تاين عدين ويدين ميسو محاد مسنتها هاي صوماليا مس صومال لا عدين ويدين ميسو وحن يانا نسكو علادين وحوية شن تير أو إسلام أيها جرا شن تاتير إسلامك يقول علادي هذا يقول ويدين متكمدا لح تير أو إيمانك وليه هي جرا لحدا تير إيمانك يقول علادي هذا مسلم تعيده أنت يقول علادي لكن وحبو أمسية يحبو أمسية dadka aniga ay fahmi waayay waxaan u sheegayaa haddii ay adiga Soomaali kale nacaybkiis kugu jirto daniga iguma jirto anoo aynu isku deegaanahay oo isku meel ku abtirsanayna oo aynu isku qabiil ku abtirsanayno haddii ay bala kale kugu jirto dee khasama in aniga igu jirto hadday dadku isku mid yihiin waxba ma jiraan dee adduunyadaba waxba ma hagaageenba waa ina dadku kala aragti noqdaan kala roonaadaan waxaa laga yaabaa taydan anigu in adiga kula khaldan tahay aniga nacayb iguma jira Soomaali waa meeshaad iga fahmi lahaday saas awgeed baan u tagayaa Muqdisho aan u tagayaa haddaan doono meeshan doono ay Soomaali joogto waana ii qorshaysan tahay waan tagayaa nacayb baan ugu jirin waxaan u arkaa dadkayga baan u arkaa adiga hadday kugu jirto dee waa gaar cunsuriya qabaliya iguma jirto waxaan ku nacaana ma jirto bal iska daaye anigu waxaa laga yaabaa inaan kaa wadanisanahay oo sidee baan kaaga wadanisanahay waxaan kaaga wadanisanahay anigu waxa weeye Ethiopia ayaad maalin kasta walaalo ku sheegtaa aniguna kuma sheego walaalo anigu waxaan arkaa labada cadow ay Soomaali leeyihiin waa qabiil iyo Ethiopian iyo wixii Ethiopia la midade yani say Ethiopia cadow tahay Ethiopia way noogeen maxaa waxyaabaha fulisay way noogeen inay dhul ay Soomaaliyeed haysato in ognahay dhulkan aad u taqaaneen kilka shanaad waa araadi muxtalla waxaynu ognahay waxay ka fulisay Muqdisho 2007 waxyaabaha fulisay xasuuqii ay ka fulisay kaarayaashii ay ku garaacday sidii ay u baabisay kumanaanka kun ee Soomaalida ay u kufsanaysay dumarka ay waxay doonaan uga fulinayeen gobolada dhexe waxay ka fulinayeen kilka shanaad dhulka la haysta ah waxay ka fulinayeen waxay ku sameynayaan walaalaheena halka degan way noognahay dee berri ka maalin nimankaasi waxay doonayaan in intaas soo baabiyaan halkana waa u soo socdaan Soomaaliland oo qorshaysan tahay yani mukhaddadkii bay wadaan waxa weeye waa la abuurayaa waxa weeye waa la sahansanayaa midna waa idin sheegaya arrinkaas sahanka yani dad xoogaal oo joogay Muqdisho oo yani muxuu ahaa reer Muqdishona marag way ka yihiin iminka Ethiopiankii bariga joogay wixii ka horreeyay 2007 ayaa dad Ethiopian oo Oromo qaar ah oo loo meelanayna dowrsanaya masaajidada hor joogay ganacsi haystay qaar wadaadada muxuu ahaa kutub ka marsan jiray qaar dad walwala iska dhigi jiray qaar magaalada dhex mari jiray ayaa waxaa la sheegaya oo la xaqiijiyo lagu dhaaranaya inay markii ay Ethiopianku soo galeen ay noqdeen wada yani muxuu ahaa saraakiil ciidamada horkacaya halkan sidii baa la doonaya looga fuliyay bartan Hargeysa Burco sidii baa la doonaya waa buuxaan waxa la sheegay ka soo dhigaya badale hadhowtana luuq baa la doonaya in la barto iyo laab يعني magaalada luuq baa la doonaya loo barto laab xaafad kasta dadka ku nool meel kasta meesha laga soo galiyo yani macluumaadna inta waruunayaan maxaa ku cusub xaafadan maxaa sidan ku cusub warbixina diray waxa yani taqriir askari bay diray waxa weeye meel kasta way joogaan waxay qabsadeen xamaamaadkii bay qabsadeen timisariyaash bay qabsadeen nadaafadii bay qabsadeen beerihii bay qabsadeen gawaadhidii wataan yani muxuu ahaa siday doonaan bay u soo galaan ii sheega sharciga ku joogaan ii sheega ma la baara ma la eega maxaad ku joogtaan sidee ku soo galeen ma jiraan waxaasi waa in dadka la hubiya dadka la kontroola ma diidayno dadku waxa ku jiri kara dad masaakiina oo ka soo carray dhibta ka jirta Ethiopia oo soo shaqo tagay way jiraan dad dhiban way jiraan oo ka soo carray oo inala nool laakiin fi nafs alwaqt waxa jira dad la beeraya
kuwaanu iftiimina waa kuwa markaanu iftiimina anagu waxaad tirahda waa walaalaheena waa kaasoo waxa weeye soomaali weyn buu aaminsan maxaan soomaali weyn aaminsanay adaan ku badbaadinayaa soomaali weyntaan aaminsanay meeday adaan ku badbaadinayaa intana adaa lagu cunayaaye oo waxaan ku leeyahay waa tan halkan lagaa soo galay oo waa tan halkan lagaa soo galay oo waa tan halkan lagaa soo galay waxa weeye yani lagumana noolanayo lagumana dilayo walaa way ku ictiraafaysaa etoobiya ولا كمان اعتراف يصير لو كمان لون لو كمان تلي ساس الدوني معلق إلا أنت لقى صوت تخلصيه سدح ذي ديبون شكل سدح ذي ديبي كلنا ينسوا شاقنا كلنا ينسوا شاقنا وحوي سطحيين يعني الميل هو سكيجن يعني وحوي عمق هوس ولا لا وحوي سدح ذي ديبي صومالي ديبي يا بدن بلا بد ديبي ورثة ولا صوت تخلصيه ديبي أنا مثلا ولي سوحرة وحقا وسمالنا كاسل وكسوس الله مركاو ولا ليال يينا نقون ديبي مركي هرف الصحي فصحي إلا صوعنا كوا ما أنت إثيوبيا عنا سنة والله يعني أنا نقول صوت إثيوبيا نقول صوت يعني أنا والله ما أنت نقول كلا هيست يعني ماشى يعني أوجادين كرديبي مساكين تدرك مساكين تا يعني يجا قولي بدن والله تدرك باش أوجادين هكذا شوفت يجا قولي بدن لا صوعنا ما هي كونفور لا صوعنا ما هي قبل لا ده والله ما أنت aan ku daawanay ayaa la cunay maalintaas weey maalinta halka yeena ku daawan